nabadda wadayaal meel kastoo aad dunida dacaladeeda ka joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaan halkani waa Jama binu Jama barnaamijkeena cusbaa oo la jaan qaadayay dadka caanka ka ah baraha bulshada oo aan ugu magac darnay maxaad ku joogtaa social media sida adigu isku taqaanin maahana waa sida ana ku naqaano waa sida ay bulshadu ku taqaano qof walba waxa uu ku joogo iyo qaabkiisa ayaan halkaan ku qaadaa dhigaynaa barnaamijkuna waa lama kana xalaaqaan dad badan ayaa commentiga inoo soo qoray waad ku mahadsantihiin halkiina ka sii wada inoona sii share gareeya Jama binu Jama adinka iska leh Jama yaa toddobaadkan noo saaran miiska horta waa asxaabta soo dhawaada maanta waxay tahay maanta dad baa miiska noo saaran gabdho iyo wiilal isku jira waa falaqaynayna marka waa kaftan lama xanaaqaan waa lama kala xanaaqaan waa kaftan waa okay abshukri maanta aday kugu bilaabanaysa sheekada abshukri aday ahaan maxaad ka joogtaa social media horta waxaan soo bilaabay 2012 baan soo bilaabay صح waxaan ka soo bilaabay dhinaca TV-yada baan ka soo bilaabay صح waxa ugu horeeyay TV ba u soo jirtay miya riwaayadaha waxaan ka soo bilaabay TV la oran jiray Samsat baa la baxay laakiin marka Sam News buu la baxay hadda laakiin waaga Samsat baa la oran jiray ani nin halkan aan ka salaamayo saaxiibkayga abwaankayga walaalkayga igare baan waaga ka soo wada afaqaadna waxaan isleeyahay waxaan ku joogaa chillinkayga baan ku joogaa sababtoo ah 2005 baan waxaan bilaabay inaan riwaayadaha aan sameeyo markaas miisleeda waqtigaas talent ba u lahayd riwaayadaha dhanka riwaayadaha aniga media lama aqoonba markii riwaayad waxaan markaa daawan jiray oo aan aad u xiisan jiray majaajilaystayaashii waaweynaa boon xirsi صح janiya naxariis Allah siiye waxa kale aan asna daawan jiray nin li Cabdi Hayba Laambad maslaxayaash raggi waaweynaa TV-na waxa noo ahaa TV-ga Jamhuuriyadda Djibouti RTD liya RTD baan markaas ka daawan jiray ka bacdina waxaan ahaa jilaagana waan ahay wuxuu wax igu jira way ahay raadiyoogana waa ka dhageysan jiray waan gartay marka waxaan ku joogaa baan isleeyahay hibada Ilaahay ku siiyay baan ku joogaa ما شاء الله marka taan rabno aan ka hadlayno waa taas tu ilaahay hibada ilaahay uu ku siiyay oo aad wax ku jilaysid oo talent ah ku leedahay waay ma aha mid iska keenayo mise social media hadda wuxuu kala baxay labo way waa mid dad talent bay leeyihiin dadna iska qaqayliyaan way buuqaan dadka caayaan oo bay ku joogaan way midda kale xilliga anigu aan wax jilay Nairobi da inta laag ama Kenya da inta laag oo jamhuuriyadda dhan ah ma ilahayn cid jilaa ma jirin markaas waa kooxdayada aniga igare Foos iyo dhowr qof oo waaweyn oo dadkii hore ahaa laakiin wax ordayo markaa meelaha ka muuqmuuqday aniga iyo waxaan ahayn igare iyo Foos ciido hadda ah agaasimaha dhan oo ama tafiftiraha 5TV marka waqtigaas iyo waqtigan maxay kala duwanaasay iyo wax badan jilaanimada waqtigaas iyo hadda wax ku kala duwan yihiin waga no Brisbane dhacay jirin laakiin halkii aan rabno roobno noogu daay bay noo noqoto de waga website-yada iga raan xasuustaa saaxiibkay halka aan ka salaamayo oo website-yada yiraahda website-kaas saa laga soo akhriyo oo website-yada markaas jiray laakiin aqoon uma lahayn YouTube-ku markuu soo galay baan ku yiri wardhadan baa leeyahay waxba laga helaayo waqka YouTube-ku ugu horeeyay ninkii ii sameeyayna aduu ba ahaa laba YouTube waxa aan filayo 2017 buu ii sameeyay oo waagaas la TV iyo la TV lacba iga horeeyay ninkan laakiin midnimo YouTube la oran jiro midnimo TV oo saaxiibkay iga raa uu sameeyay baa jiray laakiin YouTube ugu horeeyay nin ii sameeyay adoo ah qasaa dhunkaal buu ahaa hoos baa ka arki kartaan hataa inuu dhunkaal ahaayo halkaas marka waagaasna lacag uma gali jiray anagu waxaan u gali jirnay in hataa lacag war laga meeyna barigaas laga maali jiro waaba kanba xilliga aad samaysay waa kan 16 soo halka maxaa way 17 January bay ahayd afarteed October waa bishii
afraad wey ومركان afartii October wey 2017 buu qasaab ninkii ii sameeyay waana ku mahadsan aan ka gudubna Cabdi Shukri adi maxaa haysaa Cabdi Shukri ana maxaa ii haysaa igu soo daaxaa waya dad badan adiga laftigaaga waxay noqonaysaa maxaad social media ku timid maxaad ku joogtaa صح markii ugu horeysay maxaad ku timid horta hore social media-ga markaan waqtiga aan soo galayay ninka dabcan ninka uu iga horeeyay waa nin 2005 6 soo jili jiray buu ahaa anaga barigaasna de school aan dhigi jirnay primary dugsiga hoose aan dhigi jirnay wax jilitaan dhahay iyo waxa sawir maan ka helin 2012 baan aniga waqtigii aan soo galay waay oo cameraman aan ku soo galay waxana waa wax aan weligeed jecel hatta anoo townka ka shaqeynayo anoo meel ka shaqeynayo ayaan doorkii waxaan imaan jiray inaan barto sida loo duubo sida loo edit gareeyo sida ay dadku wax u jilaan Mareykanka filmaanta Mareykanka ka daawan jiray cashiraha aan qaadan jiray wiilka walba cameraman nimaan ka bilaabay cameraman saan u ahaa kadib ayaan wixii bulshada saan u dhex jiray dadka u fiirsana afkooda say wax u jilayaan habka ay u hagaajinayaan marka anin tiiba ay u dhalato waxa isirniyo bal isku day bal inaad jili kartid dadka moogta badankood dadka qaar bariga waqtiyaashaas kaamirooyinka ka cabsan jiray ilaa 2019 ka xasuusta kaamira dadka ka cabsooda waa laga baqi jiray shock camera jirtay marka aniga waxaan bilaabay marka inaan riwaayadaha curiyo riwaayadaha director dad badan ninkan director baan u ahay dad badan director baan u ahay riwaayadaha waan duubaa waa mahadsan tahay waxa jirtay riwaayad lay oran jiray naag xun reer ma dhaqato oo magaceeda ay lahayd sagal Soomaali halka aan ka salaamayno fikradana uu lahaa ninka la yiraahdo Jamaa bin Jamaa oo haddana riwaayadii kaliya dunida igu qaalisaneed oo aan halmaamay ninkii alifay ninkii direct gareeyay kaamiradan aan maanta ku duubayno waa tii laga soo bixiyay wixii naga soo galay waa director weyn waa curiye waa hal abuur waa cameraman waa editor waa dhinac waa jilaa aad buu mahadsan yahay oo de inuu iskiin baro iyo ina anigu idin bara halka igala qurbadnaatay marka way maxaa kale ku joogtaa waxaad nagu soo gashay cameraman-nimo waxaad nagu soo gashay director waxaad nagu soo gashay labadooda marka isku fiiriyo horta hore marka aan jilaayo iyo marka director ahay marka waqtigaas ana waxaan ka sii jecelahay marka director ka ah director si wax qurux badan soo baxan ana markaan film ku jiro dadkii direct garanayo si qurux badan ay ugu soo baxo marka mar qaar waxaan isdhaa adiga hadda laba laga kala dhigi lahaa mid director iyo mid gudaha ku jiro aadiya wixii way hagaagi lahayd way fadhiisan lahayd cameraman fiicanna wuu ku fadhiisan lahaa aadiya marka aan intaasaan ku joogaa directornimada iyo jilaannimadan ku joogaa baa ku joogtaa wax kale kuma joogo waayahay yaa kaloo maanta miiska noo saaran oo aan galayna waxaan rabaa gabdhaha hal inaa iga taabatid gabar la dhahayo Samiixa Khaliil maxay ku joogtaa isdhiga Samiixa Khaliil horta hal riwaayad baa isla jilla صح horta waa gabar da'yar aad u caqli badan aadna aqoonna u leh صح oo qof aqoon leh weeye waa qof xushmad leh waa qof qadarin dadka qadarisa Samiixa waxay ku joogtaa quruxdeeda ayadu quruxdeeda ku joogtaa horta quruxdeedana way ku joogtaa ilaahay waa si caqligeedana waa ku joogtaa صح aqoonteedana waa ku joogtaa صح horta aad bay caqli badan tahay ma sha Allah baan leenahay aad bay u firfircoontaa waa dadka firfircoon weeyaan madaalaha ah dalahan weeye ma badaashaba waa madaale aqoonna way leedahay mid diini iyo mid maadiba way leedahay oo labada dhinacba way ka dhisantaa صح Samiixa marka waa dadka uu u baahan yahay social media uu u baahan yahay Samiixo qaawan arki maysid Samiixo wax caayis arki maysid Samiixo wax ku dhagan arki maysid Samiixo waxay ku joogtaa talentiga dhinac kasta rabbi ka siiyay bay ku joogtaa Samiixo waxaan leeyahay cidna cimaamadeeda ma haysan karto baan leeyahay oo haddana waa dadka afka gaaban oo aadka u xisho maqli jira banaankiis maradiskeed ma qabsato weligaa iyadoo qof is hayaan maar iyadoo qof ku dhagan maar weligaa iyadoo qabiil hebel ka hadlaysa maar dhanka labiska number 1 bay u qaadataa صح labiska anu haddaan dee oran lahaa ha looga daydo
waxaan oran lahaa ayadaha lagu daydo ayadaha lagu daydo dumarka ku daydaan baan oran lahaa waana fashionist dhinaca u fiirsido dee qaabkeedoo dhanba qaabkeedoo dhanba dharkay sidato waxaan malaynayaa maalin markii la arko magaalada dhan way jeclaysataa inay la dhar noqdaan dhanka talentigana waxaa leedahay talentigana waa number 1 sababtoo ah way la jishay aniga iyada waa mar baan is hor fadhiisano riwaayad bay ahayd hodan ay keentay marka qaabkeeda jilinkeeda waa fiicnaa saas maasha Allah waan gartay dhanka wiilka aadayna wiilasha nin la dhahay Ayub Carlo ma taqaanaa Ayub Carlo aqoon aan isku naqaano kafool malaha laakiin social media ayaan ibaray kaas ayaa raba Ayub Carlo wuxuu ku joogaa caydiisu ku joogaa wax talent uu ku jooga ma jirto laakiin wuxuu ku joogaa caydiisa wuxuu ku joogaa afkiisa afkay qoyan buu ku joogaa afkay qoyan buu Ayub Carlo ku joogaa wax kale ma jiraan dhanka labiska dee inkastoo labis rageed aanan oran karin xagga way iyo jir noocaan u leeyahay aanan oran karin kolley afkiisa ayuu ku joogaa hadda kahor waxaa tiri nin baa fashionist nin fashionist ma noqdaa ilan waxaan soo qaadanay wiilkii la dhihi jiray hurdaay aan soo qaadanay qaabka dharka fashionka nimanka caalamka markii soomaalida dhinaceeda loo fiiriyo dhinaca soomaalidu maana lahaan jirin anagu haddaan kusoo birbiraya laakiin da'yarta aad moodid hadda inuu kusoo birbiraya marka Ayub Carlo dadka kama tirsanaa laakiin afkaa qoyan buu ku joogaa afkaa qoyan sax waan gartay sababtoo ah gabadh oo kale ula hadlayaa wuxuu doono kula hadlayaa qabiil buu ku hadlayaa wuxuu doono ku hadlayaa afkaa qoyan baa leeyahay marka qofkaas camal ma loo baahan yahay leedahay mise inuu ku fadhiisto social media waxaan oran lahaa socialku weli dee horta da'yartoo dhan waa meel ayadu u baahan da'yarta u baahan sababta ugu baahanta waxay tahay waxay ka helayaan dhaqaalo waxay ka helayaan inay wax ku soo bandhigaan hadday ganacsi leeyihiin ganacsigooda ku soo bandhigaan hadday talent leeyihiin talentooda ku soo bandhigaan ay meel wax ka soo saari karaan ee wax soo saar u samayn kartaa inay tahay baa jirta maasha Allah waxaa u tagtaa marka wiilashii sibay kaaga soo dhadhamaanaya Shiina Culey halkan waa ka salaamayaa waa aqoon asagana sidoo kale iskuma lihin waxa ay baray social media ka wada naqaana halkaas aan baray oo ka wada naqaana laakiin wali halo ismaan noor Shiina wuxuu ku joogaa afkiisu ku joogaa oo asaga laftigiisa ku leh waxa jirta war magaciin jiriye waxaan ahay afku xoogle waa wariye ayuu ahaa Shiina waa wuxuu leeyahay dadka waxa weeye afka qoyan asna oo hadla laakiin waxaan filayaa in uu dhaamo dadka qaar Ayub Carlo kale xogaa inuu dhaama dila moodaa markii afka qoyan la yiraahdo waxaad moodaa Shiina inuu ka sii aftahansan yahay wax reebis markii la yiraahdo wax lahar wax reebo waa nin wax reebta social media waa ragii soo bilaabay 2007 berigii maxaakiimtaan u malaynayna xataa waxaa arkaysaa asagoo mas'uuliyiin waaweyn waraysanaya oo dhinaca wareennimada buu kusoo galaa marka haddana waa nin yaqaano weye mediaha aad u yaqaano sidii loo sii jiito aad u yaqaano weye waxaan leeyahay asagana dhinaca afkaa qoyan uma hadle laakiin waa aqoon hore iyo weliba rabitaan asaga uu mediaha rabay baa dhex keenay halkan horta mediaga markaad rabtid iyo markaad maaragtay kusoo gashay sida kale waxaa isku mid ma ah labay ku kala yihiin marka aad rabtid waxaa qaad iska ilaalinaysa laakiin marka kala tahay sida kala tahay waa afka aqoontii oo waxa doontaa sheegi dadka doonta cayn qof walbaba waa ku dhagantay waxaas marka talent ma dhigi karnaa waxa talent ma oran karno laakiin se Soomaalida haddaan nahay qaar baa waxay u bateen inaan dadkii cayno oo soo fadhiisano maantana qof ku dhaganayo hooyo caayayo wax qof walba waxa laga qabiil la caayayo wax walba lagu dhagan yahay dad baa xataa baad ka dhex qaada oo baadistayaal ka dhex ah social media oo hadii kale waa ku caayaya hadii kale xagga ku yeelaya hadii kale saana ku yeelaya ayna ahayn iska keen okay marka waxaan tageynaa
hal gabar aan tegaynaa hal gabar baa ku darsanaynaa inaad taqaanid ma aqaano waxaan tegaynaa gabar la dhahayo Mrs. Wall mataqaan Mrs. Wall gabar la dhahayo Mrs. Wall waan arkaa oo ayana waa dadka social media ee baray laakiin dadka TikTok ayad adiga TikTok adiga lagu daay TikTok ani saa uma daawadeen laakiin waa dadka TikTok waa qofta aan bartagli waa taageero anu midda yiriistaydo magac lahayd igu waalo igu waala midda Mombasa joogto igu waala aad u taageera igu waala waa ku taageersan ninkana ku waash haye ani Mrs. Wall taageersan way anna igu waala taageersan laakiin dhaqanka dhaqankeena dhinaca diinteena horta kuma taageersan ayo dhaqan ahaan diin iyo dhaqan dhaqan ahaan kuma taageersan way si ahaan say dadka ugu qosliso say dadka ugu soo bandhigto ay haddana qof furfuran u tahay say iskugu kalsoon tahay ila YouTube iyo TikTok waxa la rabaa inaad isku kalsoon tahay marka isku kalsoon tahay bay dadka ku aqoonsanayaan ma fahamtay qofta waa qof isku kalsoon isku waxayso binay sabo ee dadna dhagaha u dhigin uma dhigto dhag talaquma siiso wax walba lagu subiyaa qofta isqari sida siyaal baa la dhahaa laakiin qof dhageysanaysa ma aha waxaan dhihi lahayn ilaahay horta hore gabdhaheena soo haanumiyo qaybtii ma aragtay jid xun ku socda ilaahay soo haanumiyo qaybtii kalena day way hanuunsan yihiin ayagana waxaan leenahay meesha ka sii wadaan wanaag marka ani intaas ku taageersana amaadsantihiin inta ku taageersan yahay uu soo bandhigay saaxiibkeen laakiin inna kuma taageersan waya madaxweynayaal baa ku jiri doona haddii rabbi raalli ka dhigo barnaamijkani barnaamij soo gaabanaya maaha toddobaad kastana 3 qof ilaa 4 qof baan kusoo qaadan doona haddii rabbi raalli ka dhigo commentigana noogu soo wada qora halka weli naga daawanaysaana waa Jamaa binu Jamaa iyo barnaamijkeenii dadka bulshada baraha TV bulshada ugu jira iyo waliba qof walba waxa uu ku joogo iyo waliba asaga sidoo isku yaqaan ma ahane waa sida ayagu ay ku yaqaanaan hadda waxaan rabnaa mid inaan ka hadalno asxaabay waxaan u tegaynaa madaxweyne Farmaajo muxuu ku joogaa madaxweyne Farmaajo wuxuu ku joogaa horta wuxuu nagu soo galay wadaniyad buu nagu soo galaa sheeko la yiraahdo wadaniyada ayuu nagu soo galaa sax laakiin hadda wuxuu ku joogaa waxba yahay buu ku joogaa waxba yahay buu hadda ku joogaa waa nin hadda tiirarka adkaystay suxullada u mutay sidoo ugu soo laaban lahaa mar kale ugu soo laaban lahaa wuxuu nagu soo galay shallo yara xogaa yaro bidaara yara buu lahaa alaabtii yara ugu beertay Suudiyar uu nagu soo galay Ethiopia hadhacdu nagu soo galay ka bacdina ninkii ugu horeeyay oo wadani Soomaaliyeed oo dhiibay ayuu nagu soo galay sax waxaan leenahay haatan wuxuu ku joogaa wadanka iyo baraha bulshada wuxuu ku joogaa waxba yahay ku joogaa ما شاء الله وسوق هاي ناس يدير وحويا ما ديار واحد ان هذا اوصل لابنا دنك السوشيال ميديا وي دليراد هل دليراد ku daraysa hal dhalinyaro ku daray way waa gabagabadii gunaanadka barnaamijka waay way waa soo xireena hal qofan ku soo xireena hay abshukri nin la dhahay CK muxuu ku joogaa CK wuxuu nagu soo galay falanqayn garfayn CK-na meesha wuxuu ku joogaa asagana dhinaca horta waa nin iska rosaafi ah mar dad buu wareysan jiray ma arag waxa mar baan falanqaynta heesaha lagu dhageeyo waxa soo nagu soo galay mar waxa arkay YouTube-kiisa markuu bilbilaabay aan ku arkay qayb yar xasaasan ku arkay hay noo sheekad waa nin iska qalbi wanaagsan ku joogo talentigiisa wuxuu ku joogaa dadnimadiisa wuxuu ku joogaa isku kalsoonaan oo isku kalsoon yahay buu ku joogaa waa dadka isku kalsoon waa dadka caqabadu marka ka hor yimaadaan iska caabiya laakiin aan dadka afku xooglaha xoogga saaidka ama aftahanka loo yaqaan aan ahayn afgarooc waa dadka iska hadalka gaaban sababtoo ah waxaad arkaysaa muuqaaladiisa wuxuu ka buuxin jiray oday ma aqaan Nigerian iyo dhan inoo wad alaabahaas uu soo galgalay waa dadka afku xooglaha aan saaidka aan ahayn laakiin wuxuu ku joogaa adigu de waa la joogaa joog dhanka heesaha iyo qaada asaga waxaas heesa lama yiraahdo cantara baqash baa leeyahay okay ani horta CK
markaan dhaarisi ka ahaan hay adaa ka daba tagay ugu hadlay kama daba tagay israaci waay waxyaalaha israacina ana waxa islaamay mid baa ka dhigtay baa israaci laakiin asaga israacina horta hore waa ninka oo ugu aqal badan social media way kuwa kale baa bila aqliga dhigayse waa dadka maskaxda ugu maskax badan ay ku jiraan way waa ninka mar walba khalad yar hadduu kaa dhaco isdhaho dad sidoo xalin lahaa libaaxyaala saa kuu soo taagan oo difaaci oo ku cunaayo dadkaas maxaa la siiyey dam maxaa la siiyey waxa la siiyey ma garanayo laakiin maxaa isleedahay ninka uu ku difaacaya sababtoo ah waxaa laga yaabaa qofka ninka difaacay waxaa ka dhacay khaladaa ka dhacay hadda koor waa xasuusanaa khaladka muxuu ah ayuuni qurux dhahay khalad noocaasa ka dhacay gabadha markii la dhahay noogu celi gabadha ayuuni qurux gabadh laha jirto social media la soo dhigo videogeeda la soo dhigay kambal soo dhigay asaga waxa ahaayeen videoga la soo dhigay muxuu uu ka hadlaayay arintaas ku hadlaayay uu soo dhigay sawirkeeda wixii soo dhigay marka waxa la adaa baafinaysid buu maanta adaa faafinay adaa faafinaysa marka intii waa lagu qabsaday magaalo dhan baa iskugu timid oo qof walba ka faa'iidaystay oo ninkii waxba looma reebin marka kadibna hadee arrimo kala dhaceen oo asaga xaaskiisii hore ku saabsano dadka waxay isdhahayn haye ka faa'iidaysta dadka waxay dhahayn ka faa'iidaysta ninka uu dawaatiya hadallo iska soo tuur doono xanaaqi doona wax buu soo tuur suga ay dhahayn waa aqliyay wuu u fadhiistay uu fikiray wuxuu dhahay meeshan haddaad iswaashid waxba kama dheefaysid balaayaa kugu soo raacayso ilan dad baa waxay yihiin saa u sugaya ninka inay khalad yar inuu ka dhaco waa la isku tuuraya khalad yar dad baa ka faa'iidaysanaya ma fahamtay marka ninkii aqligiisu buuxaad waxaa ileen waxay ku maamaaheen ingiriiska waxay ku maamaahay once bitten is twice shy once you are bitten hal mar haddii kugu dhacdo ush mar labaad waa inaad iska ilaaliso ka foojignaata mar labaad marka hal mar ay ku dhacday tii kalena waa midda ugu darneede Soomaalidan sugaysay uu u fadhiistay dhulka u dhigay fahamtay uu fikiray marka ninkan waa nin dad badan ay hareeraha joogaan waayahay waqtiga sugaan waayahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxaan noo soo idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdishukri maxamed jaacsan iyo waa jamaa bin jamaa oo idinle sidaas iyo antara baqash nabadgelyo